ardayda dugsiga sare Faarax Umar halkan maanta waxaan u taaganahay inaan sameeyno tijaabadii koowaad ee dugsiga Faarax Umar gaar ahaan qaybtan gariga dambe anigoo ah maamulihii dugsiga sare Faarax Umar ee gariga dambe section-kan sidoo ogsoonahay waxaan sameeynay ardayda waxaan u qaybinay laba shifti ama laba qaybood waxaan geynay qoladii foowanka kale waxaan geynay gariga dambe waxay ka kooban yihiin waa 4 glass way 4 glass waxay ka kooban yihiin 40 way waxaas inoo si dheer oo iyaga waxa way glass kale dhagoolayaasha ayaa iyagu jira oo macallin turjumaana uu jooga oo la qaata xiisadaha ardayda caadiga marka dardarteena cusbeed iyo waxa way nidaamkeena cusub ee maamulku wuxuu keenay in ardaydu ay helaan waxa way maxay koorsooyin degdega oo ay kamid yihiin in laabka aan dejino wixii practical theory ee macallinku ku soo qaatay fasalka dhexdiisa in la geeyo laabka la geeyo sababtoo ah imika waxaan ka duwanay dugsiga kale waxaan loo qalabeeyay dhamaan laababkii kala duwanaa ee dugsigu lahaa marka imika waxaan oo diyaar ilaa laba laab marka chance wanaagsan bana haysanaa waxaan u baahanahay dhamaan ardaydu inay chance ka faa'iideystaan oo waxa weeye macallimiinta laabka way noo diyaar imika ugu yaraan waxaan haysanaa laba macallin oo laabka oo noo diyaar saadaradeed waxay arday ahaan waxaan ku dhiirigelinayaa oo in ardaydu ay waxa way ka faa'iideystaan maadadan laabka oo waxa weeye iyaga laftigu macallinku wuxuu awood u siin karaa in marka uu macallinku isagu dhamayo laboratory sectionskan ama experimentarieskan in awood ay u leeyihiin ardayga laftigu inay sameeyaan iyaga laftigu experimentaries marka waxa loo baahan yahay in waxa weeye aynu noqono ay joogteeno laabkan oo xiisada laabku ay ka noqoto xiisadaha kale maxay ay ka duwanaato waayo iskuulku waxaan ku qaadanaa 10 maado caadiyan laakiin waxay noo dheer laba maado oo ah computerka maxay iyo laabka computerina waa noo diyaar laabkina waa kaasoo maanta first instrument-iga koowaad ama experimentary koowaad aynu maanta kalina experimentary koowaad marka mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u mahadnaqayaa ardayda sida wanaagsan ee macallinku uga faa'iideysanayaan sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa maamulaha dugsiga sare Faarax Umar Kiisan Xasan Yaasiin oo gelinka hore iyo gelinka dambe isagu nala jooga isagoo gelinka horena maxay hawlo fara badan ka qabta gelinka dambena maxay isagu nala jooga oo markii ay maxay aan wax weey aan ka tagin ilaa salaada maghrib ilaa 7 subaxnimo uu taagay isagana aad baan u mahadnaqayaa